شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، الله تبارك وتعالى حكمتيسا حاشا دير iyo galadiisa adoomadiisa uu ku galadaysanayo darteed ayuu rabbi tabaaraka wa tacaala adoomadiisa wuxuu siiyey waqtiyo fadli siyaada leh iyo jaanisyo ay ilaahay u dhawaadaan tabaaraka wa tacaala. rabbi tabaaraka wa tacaala khalqigiisa qaar buu qaarka kale ka fadilay, malaa'igtuu kala fadilay oo basharkuu kala fadilay, ambiyada iyo rusushuu kala fadilay, dhulka iyo zamanka ayuu kala fadilay. qaar buu qaarka kale siyaado ka siiyey xikmadiisa xeesha dheer darteed. zamankan aan hadda ku jirno iyo waqtigan aan ku jirno wuxuu ka mid yahay waqtiyada allah tabaaraka wa tacaala uu siyaadada iyo fadliga siiyey buu ka mid yahay. waxaa maanta kow ah oo inoo dhalatay bishii dilxija ama carafa sida soomaalidu u taqaano. bishan bilowgeeda ilaa 10 beriya u horeeya waa 10 beri oo wata khayr siyaada ah iyo fadli siyaada ah. tana waxay ka sugan tahay nabigeena salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh. waxa uu rasuulku leeyahay ma jiro maalmo camal wanaagsan oo la sameeyo uu ka khayr badan yahay 10kan maalmood dhexdooda camalka la sameeyo. yacni camal khayr ah oo ilaahay loogu dhawaado waxaa ugu fadli badan sanadka oo dhan maalmihiisa maalmahan 10kee bisha dilxija camalka lala yimaado ayaa ugu fadli badan. saxaabadu ridwaanullaahi calayhim waxay nabiga weydiiyeen arrin ayaga agtooda caan ka ahayd inay wax la sameeyo ugu fadli badan tahay. markuu nabigu yidhi camal maalmahan la sameeyaa ugu fadli badan, waxay yidhahdeen rasuul ilaahayow xataa jihaadka ilaahay jidkiisa lagu jihaado miyay ka fadli badan yihiin acmaasha maalmahan la sameeyo? markaasaa nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam haa, xataa jihaadka waa ka fadli badantahay ilaa hal nin mooye, ninkaasoo xoolihiisiiyo naftiisiiba goobta la tegay. wa fii riwaaya meelaha khatartae halista alla galay kadibna aan nafna la soo noqonin xoolana la soo noqonin. xaaladdaa iyada ah oo maalmo kale dhacday oon 10kan maalmood dhexdooda ahayn ayada lama gaadhi karo. laakiin wixii intaa ka soo hadhay maalmahan dhexdooda waxaan ahayn maalmo la mid ah oo 10 beri ah oo aan 10kan ahayn, jihaad aad gashay, nafna ayna kaaga tegin, xoolihiina aad la soo noqotay, maalmahan camalka la samaynayaa ka fadli badan. macnaha xadiisku sidaas weeye. saas daraaddeed baa riwaayada waxaa sii caddaynaysa ibn xibbaanoo su-aasha nebiga uu ninku weydiiyey waxay ahayd rasuulka ilaahay oo maalmahan maalmo la mid ah oon iyaga ahayn oo ruuxu uu jihaaday xataa ma ayagaa ka fadli badan? ayagaa ka fadli badan buu nabi sal alla alay wasalam. ilaa ruux faraskiisiina la boqon gooyey asaga dhiiggiisiina la daadiyey mooye waxba aan la soo laaban. suurada keliyatuu nabigu soo reebay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. waxaad garan kartaan marka yacni mansilada iyo booska ay ku jiraan maalmahan camalka la sameeyo taacada lala yimaado aad bay u heer sarraysaa, qiimo weynna way ku fadhidaa ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala. sidaas daraaddeed jaaniskan in laga faa'iidaystay u baahan yahay.
cadamadooda iyo maalmahan qiimahooda waxaa ku tusaya xataa habeenadooda ayuu rabbigeen ku dhaartay tabaaraka wa tacaala. fajarkan ku dhaartay buu rabbi yidhi iyo habeenno 10 ah. mufasiriinta salafka iyo culimmadu say u badan yihiin 10ka habeenee alla ku dhaaranayo waa 10ka habeen ee bisha dilxija ugu horeeya. rabbigeenna tabaaraka wa tacaala hadduu khalqigiisa qaar ka mida ku dhaarto sha'ni khaasaa ku jira. habeenadan markaa sir khaasaa ku jirta waxaa rabbigeen ugu dhaaranayo tabaaraka wa tacaala. waxayna muujinaysaa fadligu inuu habeenadana ku jiro maalmahana ku jiro, laakiin maalmuhu ku badan yahay sida xadiidka nebigu sal alla alay wasalam caddeeyey. maalmaha ayuu fadligu siyaado yahay. camalka la qabanayo muxuu yahay fadliga si looga faa'iidaysto ruux uga faa'iidaysto maxaa loo baahan yahay? xadiiska sida ku cad nebigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi alcamalu asaalix waxaa soo gelaya hadalka camal kasta oo wanaagsan oo shuruudii salaaxa oofsaday. camalka saalixa waxaa soo gelaya salaadoo la badsado, tii waajibka ahaydoo la ilaaliyo iyo tii sunnada ahaydoo la badsado. waxaa soo gelaya camalka saalixa ah soonka, waxaa soo gelaya sadaqada, waxaa soo gelaya dadkoo diinta la baro khayrka loogu yeedho xumaantana laga reebo. waxaa soo gelaya dikriga rabbi tabaaraka wa tacaala iyo xuskiisa iyo qur-aanka akhriskiisa. wax kasta camal kastoo la jideeyo ilaahay loogu dhowaado ayaa soo gelaya alcamalu asaalix. sidaas daraaddeed majaalaadka khayrka ee addoommadu ilaahay ay ugu dhowaan karaan iyo turuqdu aad bay u fara badan tahay. waana rabbi tabaaraka wa tacaala mawsim uu ugu talagalay inay dadka ahlulkhayrkii tartamaan. in la tartamo oo mawsimkan loo tartamo sida xilliyada mawaasimta adduunyada iyo tijaarada iyo ganacsigu uu taagan yahayba tartan loogu gala adduunyada oo bilaha suuqyada iyo ganacsigu kala socdo. sida dadaalka siyaadada loogu galo si aan lagaaga faa'iido badanin waxaa ka habboon mawsimka aakharo in aan tartankiisa lagaaga badanin oo ka faa'iidaysigiisa aan lagaaga badsanin oo ribixiisa aan lagaaga badsanin. fikirku inuu dhankaa u bato baa laga maarmaan ah. sida aad dadaalka ugu jirto mawsimka tijaaraadka iyo beecaha iyo shiraha aan nin walba ka faa'iido badso u leedahay soo kama habboona adduunyada iyo ganacsiga adduunyada wax ka khayr badan oo ganacsi aakhara ah inaad tartankiisa gasho. laa shak ciddii caqli loo garasho leh allana waafajiyo waa garan karaa. sidaas daraaddeed inaynu ka faa'iidaysanno oo taacada rabbi tabaaraka wa tacaala aynu badinno ayaa laga maarmaan ah. khaasatan nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiidka axmed uu soo saaray wuxuu leeyahay maalmahan waa maalmaha camal la sameeyo ilaahay ugu jecel yahay. waxaad badisaan tahliisha laa ilaaha ila allah, waxaad badisaan takbiirta allahu akbar, waxaad badisaan taxmiida alxamdu lilah. dikriga rabbi tabaaraka wa tacaala carabkiina ku badiya. waxaa macnaha isaguna tilmaamaya aayadda qur-aanka fi suurati alxaj alla ku yidhi tabaaraka wa tacaala liyashhaduu manaafica lahum wayadkuruu sma allahi fi ayaamin macluumaatin cala maa rasaqahum min bahiimati alancaam. inay ilaahay xusaan maalmo la yaqaano dhexdooda inay alla xusaan oo xoolaha uu u xalaaleeyey korkooda ay alla ku xusaan. mufasiriinta say u badan yihiin salafku waxay leeyihiin maalmaha macluumaadka ilaahay la xusayo waa 10ka beriye bisha dilxija u horeeya. saasay u badan yihiin mufasiriintu. sidaas daraaddeed maalmahani waa maalmo khayrkoodu siyaado yahay. dadka muslimiintana la doonayo inay isu diyaariyaan say uga faa'iidaysan lahaayeen. waxyaalaha looga faa'iidaysan karo waxaa ka mid ah soonka. khaasatan maalmahoo dhanna waa la wada soomi karaa marka laga reebo maalinta 10aad oo maalinta ciidda ah. 9ka beriga ka horeeyaba waa la soomi karaa cala raajix.
bal sunanka waxaa ku sugan abu daawuud iyo tirmidi iyo can bacdi aswaaji الnabiyi sal lla alay wasalam in ay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yasuumu alcashra wa yowma caashuraa wa alaaata ayaamin min kulli shahr nabigu wuxuu soomi jiray tobanka wuxuu soomi jiray maalinta caashuraa bisha muxaram bil walbana 3 beri buu ka soomi jiray marka 9 berigii hore waa la soomi karaa cala raajix sidoo kale maalinka sagaalaadii isaga hadalba kuma jiraba waa maalinka aadka u fadli badan oo maalinta carafa ah nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa la weydiiyey maalinkaas soonkiisaa la weydiiyey xujaydu carafay taagan yihin markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam maalinkaasi waxaa ilaahay ku dhaafaa maalinkaas soonkiisa ilaahay wuxuu ku dhaafaa oo ku cafiyaa sanadkii hore wixii dembi ahaa iyo sanadka soo socda wixii dembi ah 2 sano dembigood maalin soonkeed baa ilaahay kaaga dhaafaya waxay ka mid tahay 10 beri fadaa'ishooday ka mid tahay maalinka 10aad oo maalinta ciidda ah ayadana sidoo kale waa maalinta xajku ugu weyn yahay yowm alxaj alakbar waa maalin aad u fadli badan waa iyada lama soomi karo laakiin taacaad kaloo aad u fara badan baa maalmaha lala imaanaya oo ay ka mid tahay maalinka iyo 3 beriye ka dambaysa iyadana waxaa mashruuca oo aad iyo aad iyadana u fadli badan inuu ruuxu hadduu heli karo xoolo qalo ugu yaraan neef adhi ah neef lo ah neef geel ah ka badan oo udxiyaysto iyadana acmaasha waaweyn bay ka mid tahay xajka marka lagu jiro acmaashiisa kuwa ugu fadli badan waxaa ka mid a talbiyada oo kor loogu dhawaaqo labayk allahuma labayk iyo xoolaha qalitaankooda acmaasha manaasigta xajka kuwa ugu fadli badan buu nabigu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam sidoo kale dadka muslimiinta een xajka acmaashiisa ku dhex jirin ee dhulkoodii jooga in ay udxiyaystaan oo xoolo qalaan maalmahaasi ayadana acmaasha ugu fadli badan bay ka mid tahay